degmada Baraawe ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana caasimada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ka socda tartan kubadda cagta oo ka qayb galeen ilaa 16 kooxood oo ka dhisan degmadaasi Baraawe iyo nawaaxigeedii tartanka oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxa hadda uu soo gaaray heerkiisa gabagabada finalka iyadoo kooxda kubadda cagta ee Bulubazi oo kamid ah kooxaha caanka ah ee waqti badan soo jiray ee ka dhisan degmada Baraawe ay soo gaartay heerka kama dambaysta finalka koobka kubadda cagta ee ka socday degmadaasi ka oo taabageliyeen xilka kubadda cagta degmada Baraawe iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda Soomaaliya iyadoo halkaas uu ku sugan yahay tababare dhanka garsoorayaasha oo xilka kubadda cagta dalka Soomaaliya ka tirsan oo lagu magacaabo Bashiir Colaad Carab kaasoo garsoorayaasha ka dhisan degmada Baraawe tababar siinayay kooxda kubadda cagta ee Bulubazi ayaana soo tiigsatay heerka gabagabada finalka koobka halkaasi ka socda kadib markii ciyaar xiiso badneyd oo galabta ka dhacday halkaasi ay ku legdeen 3 gool iyo 1 kooxdii caanka ahayd ee Al-Muftaax oo ciyaar adag la yeelatay dhigeedii Bulubazi ciyaarta oo ku bilaabatay dardar xoogan ayaa waxa ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Bulubazi ay muujiyeen dadaal iyo karti dheeriya iyagoona 3 gool ugu dambeyntii kaga adkaaday kooxda Al-Muftaax oo 1 gool markaa la timid xidigaha kala Abdullahi Abdikhani iyo sidoo kale Hanad ayaa 3 gool u kala dhaliyay ciyaartoyda kooxda markaasi facaweyn ee Bulubazi iyadoo goolka qura oo ahaa gool kulaad kooxda kubadda cagta ee Al-Muftaax oo u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Qadar waxaana ciyaartaasi kaarka roosaha la siiyay kooxda kubadda cagta ee laga adkaaday ee Al-Muftaax laba ciyaartoy ka tirsan markii qaladaad ay sameeyeen si kastaba kooxda kubadda cagta ee Bulubazi ayaa hadda waxay sugi doontaa cidii soo adkaata kulanka kale ee semi-finalka kooxda kubadda cagta ee Bulubazi ayaana hadda isgeysay heerka kama dambaysta finalka koobka degmada Baraawe iyadoo la xusuusto in horaan tartamo noocan oo kale markay ugu guuleysatay waxaanay sugi doontaa kooxaha Banaadir iyo Daryeel oo kulanka kale ee semi-finalka iyaguna isku farasaari doona si kastaba tartankan kubadda cagta oo si xiiso badan leh ay uga soo qayb galiyeen dhamaanba taageerayaasha kala gedisan ciyaaraha xiiseeya ee ku dhaqan degmada Baraawe ayaa kooxaha ka qayb galay waxa laga xusi karaa Elman Bulubazi oo hadda finalka joogta Kaamole Banaadir Cameroon Al Nassr Muawiye Daryeel Al-Muftaax Hilaac Maymanka Kalsooni Ladraac ee kooxda Shibis waxaana gabagabadiisii la filayaa in lagu bixiyo abaalmarino kala duwan ay ku jiraan koob markaasi la guddoonsiin doono kooxda tartanka ku guuleysata ee ciyaartoyda kaalimaha kala gedisan iyagoo halkaasi ka gala